بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسيغانا تفسير كعاوحو كباللابانيا آيات كنتم يسدحات من سورة النور كمدة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون آيات سوكا بالله بنيا إلهي سبحانه وتعالى آيات وحو نقوليه وأقسموا منافقين وحي كدارتين بالله إلهي بي كدارتين جهد أيمانهم دارتودا تاكتودي بي تاكتودي اي أودودي انتي اللي أكاد بي دارتين waxay dhaheen la in amartahum haddii aad farto waxay ku dhaarteen la in amartahum ayaga haddii aad farto oo jihaadka u soo baxa aad tiraahdo la yakhrujunna inay baxayaan bay ku dhaarteen qul nabi muxamedow waxaad ku tiraahdaa laa tuqsimuu ha dhaaranina daacatun adeecid daacadaasoo macruufatun wanaagsan ayaa khayrun khayr badan ku dheh baa la yidhi taas baa wanaag badan ku dheh ha dhaaranina dhaar beena waxba matelayse ilaahay inaad adeecdaan iyo rasuulkiisa oo adeecid wanaagsan aad adeecdaan ayaa waxa weeye idin khayr badan qul nabi muxamedow ina allaha ilaahina khabiirun bimaa tacmaluun shayga aad samaynaysaan waa mid og oo ka warqaba qul nabi muxamedow waxaad kaloo u tiraahdaa adiicu llaha ilaahay adeeca wa adiicu rasuula nabi muxamedna adeeca sala allahu calayhi wasalam fa in tawallow haddii ay jeestaan fa inamaa in kala maahane haddii ay jeestaan baa la yidhi fa in tatawallow wa tucriduu can daacatihi fa in tawallow haddii aad jeesataan fa inamaa in kala maahane calayhi nabi muxamed dushiisa waxaa ahaaday maa shaygii xumila la saaray oo la xambaarsiiyey wa calaykum dushiinnana waxaa ahaaday maa shaygii xumiltum laydinku xambaaray wa in tudiicuuhu nabi muxamed haddii aad adeecdaan tahtaduu hanuuntiinee ku dheh nabi muxamedow sala allahu calayhi wasalam wamaa cala alrasuuli ila albalaaqu almubiinu wamaa cala alrasuuli rasuulka dushiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin mooye balaaqaasoo almubiinu cad dadka xaqa inuu u sheega mooye wax kaloo nabi moxamed dushiisa ahaata ma jiraan calayhi salaatu wasalaam wacadallaahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina kuwii aamanuu ilaahiy rasuul rumeeyey oo minkum idinka mida oo wa camilu saalixaati acmaasha suusuuban la yimid layastakhlifannahum ilaahay ka khaliif yeele oo u khaliif yeele fil ardi dhulka istikhlaafan khaliif yeelid ayaga in dhulka lagu wareejinayo oo looga dhigayo kuwa ayagu maamulka iyo waxa weeye tasarufka la wareega kama istakhlafa aladiina kuwii sida looga khaliif yeelay min qablihim ayaga kasii horreeyey walayumakkinanna ilaahay makaniye oo makaniye lahum ayaga diinahum diintoodii alladii diinkaasoo irtadaa lahum ou raadi uga ahaaday walayubadilannahum ilaahay u bedelee oo u bedelee min bacdi khawfihim cabsidooda bacdigeed amna nabadgelyo ilaahay u bedelee sidaasuu ilaahay ballan qaaday nicmadaas sababta loo siinaa waxa weeye yacbuduunanii way caabudayaan yacbuduunanii laa yushrikuuna lama wadaajinayaan bi aniga shay-an shayna ilama wadaajinayaan waa ay caabudayaan shayna ilama wadaajinayaan weeye oo markaa waxa weeye waa ay caabudayaan shay kaleetona ma ila wadaajinayaan yacbuduunanii waa ay caabudayaan laa yushrikuuna bi shay-an waman kafara qofkii kufriya yacbuduunanii way caabudayaan laa yushrikuuna la wadaajin maayaan bi aniga shay-an shayna ila wadaajin mayaan waman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa bacdigeed
بعد الاستغلاف والتمكين والتبديل قفكي قالوبة فأولئك دول كاسي هم الفاسقون وكوا فاسقوا بويان وأقيموا الصلاة دي أوغا وآتوا الزكاة الزكاة بحية وأطيعوا الرسول كينا أطيعا لعلكم واحد مدنتهن ترحمون إن ليدين حريسته لا تحسبن الذين كويها ليننا كفروا قالوا بي معجزين إني عجز قلنا يان في الأرض دولك دحديس إلهي إني كعجز قلنا يان ليننا ومأواهم النار ومأواهم ضمن كودو النار ناروي ولا بئس المصير ميل الله أحاده الله لابتنا نارتا أغوحن إله نقبت بادي يا أيها الذين كوي آمنوا إلهي الرسول هميو ليستأذنكم الذين كوي إذن هيدن كالضلبين ملكت أيمانكم قعمه إنو أي ملكيين إيا والذين كوي لم يبلغوا الحلم آنقار حلم إيا قروا إني معناها كتشنبان 3 مرات 6 مر إذن كهالضلبين من قبل صلاة الفجر صلاة الصبح هرتيدا إذن هالضلبين وحين تضعون ثيابكم دركينا مركز اسكدغيسان ودجيريسان إذن كهالضلبين ومن الظهيرة كليل كدرتينا أدرك ودجينيسان ومن بعد صلاة العشاء عشاها صلاة دي سبع دقيقنا إذن هالضلبين 3 عورات هي أوقاتان 3 عورات و6 وقتي أوقفكو عورديسو إن أي بناناتو صورة قليتاي عورات كاسو لكم أديك أيدين سغناضي ليس عليكم دشينا معهان ولا عليهم دشودنا معهان جناح دنبي بعدهن أوقاتان بعدقود معناها وحوي وحدنبي مركا إيمان ميان إن أيدين سوغلان ضوافون هم أيغو ضوافون وكوا وريقيد بدن عليكم كركين بعضكم قاركوت على بعض قردك لا يكو وريقياهو معناها وحوي مركا ويدين إيمانيان مركا بقريه سوغليان وي كذلك سداس وكلو يبين الله إلهي أعديه لكم الآيات آيات كيبو إلهي إذن عدينيه والله إلهي عليم ومد أغان شبضا حكيم أو حكمت بدن إلهي سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال إلمه هدي قانقاران وإذا بلغ الأطفال إلمه هدي قاران أو منكم حقي نكاء هذه الحلم حلم هدي قاران وحوي مبلغ الرجال وي فليستأذنوا هايدا ضلبين بو إلهي ليه كما استأذن الذين كوي سيدي ايضا ضلبان من قبلهم ايغا كهوري كذلك سداس او كله ايو يبين الله الهي اعديا لكم اذنك اياتكيس الهي ويدين عدينيا والله الهي عليم وامد اوغان شبدا حكيم او حكمت بدن والقواعد كوي فريستبو الهي لي ومن النساء الدمر كمده اللاتي كواسو لا يرجون أن رجين نكاح ودنبا أن رجك قبن فليس عليهن دشوذا معهان جناح دنب معهان أن يضعن إن أيدجيان ثيابهن دركود غير متبرجات كوامو جنيا غير كود حاليهين بزينة قرح موجنيا وأن يستعففن إن أي دور سنادان أيا خير بدن لهن أيقو خير بدن والله إلهي سميع ومد مقلد بدن وعليم هدنا أغام بدن إلهي سبحانه وتعالى ومد خفايا النفوس وي ليس على الأعمى روح إن دولك دشي سماها حرج دنبي جهادك يوحى إنو كهره ولا على الأعرج روح جيسك دشي سنة حرج دنبي ماهان ولا على المريض قفك جران دشي سنة حرج دنب ماهان انتا صورنا وحي ليهين عذر دار أي معناها وحوي أغهر كران جهاد كبيليهين ولا على أنفسكم نفتي ندشي دنب ماهان
an ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiinna inaad wax ka cuntaan ow buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaalkiinna guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiinna guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti ikhwaanikum ama walaalihiin guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti akhawaatikum ama gabdhaha idinla dhashay guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti acmaamikum ama adeeradiinna guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti cammaatikum ama eedayaalkiinna guryahooda aad wax ka soo cuntaan ow buyuuti akhwaalikum ama abtiyaalkiinna guryahooda aad wax ka cuntaan ow buyuuti khaalaatikum habaryarihiinna guryahooda aad wax ka cuntaan ow maa malaktum ama shaygii adinku aad hanateen mafaatixahu furayaalkiisu adugu aad maamusho lagaaga dhigay wakiil aad wax ka cunto ow sadiiqikum ow buyuuti asdiqaa'ikum baa looga jeedaa saaxiibkiinna iyo saaxiibadiinna guryahooda aad wax ka cuntaan intaasoo dhan dembi ma aha laysa calaykum dushiinna ma ahaanin junaaxun dembi an ta'kuluu inaad cuntadii cuntaan jamiican xaal aatiin kuwa wada jira ow ashtaatan ama kuwa kala tagsanoo gooni gooni in wax loo kala cuno ama la wada cuno intaba wax dhiba ma lahan fa idaa dakhaltum haddii aad gashaan buu ilaahay leeyahay buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna salaama taxiyatan salaama taxiyadaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay taxiyadaa ama salaamtaasoo mubaarakatan la barakeeyey taxiyadaa ama salaamtaasoo dayibatan wanaagsan kadaalika sidaas oo kale buu ilaahay leeyahay ayuu yubayinullaahu ilaahay u caddeeyaa lakumul aayaati aayaadka ayuu ilaahay idiin caddaynayaa lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad wax garataani innamaa in kala mahani almu'minuuna nimanka mu'minuunta ah aladiina waa qoladii aamanuu billaahi ilaahay rumeeyey wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana rumeeyey wa idaa kaanuu haddii ay ahaadaan macahu nabiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam calaa amrin amar dushii hadday ku ahaadaan amarkaasoo jaamicin ummadda kulminaya lam yadhabuu tegin maayaan xataa yasta'dinuuhu ilaa nabiga idan ay ka dalbaan calayhi salaatu wasalaam ina aladiina kuwii yasta'dinuunaka idankaa dalbaya nabiga ilaahaeyow ulaa'ika kuwaasi aladiina waa qoladii yu'minuuna rumaynayey billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa rumaynaya fa ida ista'danuuka idan hadday kaa dalbaan libacdi sha'nihim arrintooda qaar ka mida idan hadday kaaga weydiistaan fa'dan idan nabi muxammedow liman qofkii shi'ta adugu aad doonto oo minhum ayaga ka mida idanka sii nabiga ilaahaeyo wastakfir dhaafidka dalab wastakfir lahumullaaha ilaahayna dembi dhaaf uga dalab ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dembi dhaafid badan raxiimun oo raxmad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala laa tajcaluu ha yeelinnina ducaa'a arasuuli rasuulka ilaahay yeeriddaasoo baynakum dhexdiinna ahaatay ka ducaa'i bacdikum qaarkin yeeriddiisa oo kale bacdan qaybta kale ay u yeedhaan qad xaqiiqanimee yaclamu allaahu ilaahay wuu ogaaday waana og yahay aladiina qoladii yatasallaluuna siibsiibanayoo dusdusayoo tartiib u baxayo oo ninba meel ka dusayo oo minkum idinka mid a liwaadan ganbasho iyo magangelid qof kale oo isku sii aadinayo ayuu ku baxayaa falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna can amrihi ilaahay amarkiisa khilaafaya kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadeen amarka nabigaan uga jeedaa damiirkaa nabiga weeye kuwa nabi moxamed amarkiisa khilaafaya oo sunnadiisa ka tegaya ha ka digtoonaadeen an tusiibahum fitnatun fitna inay asiibto ow yusiibahum ama ou asiibo cadaabun cadaabkaasu aliimun xanuujinaya weeyaan alaahoy baraaruge inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqa ku sugan oo dhan iyo wal ardi dhulkaba kulligood ilaahay baa maamulo oo iska leh
qad xaqiiqanime yaclamu ilaahay wuxuu ogsoon yahay maa shaygii antum adinku calayhi maaga dushiisa aad ku sugan tihiin wax walba oon samaynayno ilaahay baa ka warqaba wa yowma maalinkiina ilaahay waa og yahay yurjacuuna la celinayo ilayhi rabbi xaggiisa ummadda maalinka loo soo celinayana ilaahay waa ka warqabaa subxaanahu wa tacaala oo dhammaan makhluuqu maalinta qiyaamo oo dadku u soo laabanayaana buu ogyahay fa yunabbi'uhum ilaahay maalinkaas wuxuu u warrami doonaa bimaa camiluu dadku waxay sameeyeen ilaahay baa u warrami doona wallaahu ilaahay bikulli shayin shay walbaba caliimun waa mid ku cilmi leh dersigeenna tafsiirka caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 53 ee min suurati nuur aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa waxaa la yidhi ilaahay markuu ka soo sheekeeyey munaafiqiintii iyo tilmaamihii xumaayay ku sugnaayeen ayuu wuxuu la cirbisiiyey ayaga naftooda hagardaamada iyo dhagarta iyo dhaarta beenta ah oo ay dhaaranayaan oo ay samaynayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala way dhaaranayaan nimankan waxa weeye munaafiqiinta ah way dhaaranayeen baa la yidhi dhaar bay iska dhaaranayaan weeyaan oo waxaa la yidhi dhaarta ay dhaaranayaani nimankaana waxay ka jeesanayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda inay xukunkiisa aqbalaan bay diidayeen waxay dhihi jireen baa la yidhi haddii aad nafarto guryaheenna inaan ka baxno oo aan annaga iyo xoolaheenna iyo dumarkeennuba aan baxno oo markaa aad nafarto jihaadka inaan aadno jihaad baan aadin lahayn waa ku dhaaranayaan dhaartaasu marka waa been afkay kaleeyihiine qalbiga kama jirto waxaana la rabaa hadalka aad dhahayso qalbiga inuu kaa jiro weeyaan wa aqsamuu munaafiqiintu waxay ku dhaarteen billaahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda karaankeeday dhaarteen taagteeda dhaarta waxa weeye jahdigeeda bay dhaarteenoo intay awoodaan bay dhaarteen waxay ku dhaarteen la in amartahum nabi muxamedow haddii aad amarto oo jihaadka u soo baxa tidhaahdo la yakhrujunna in ay soo baxayaan bay ku dhaarteen jihaadka soo aada haddaadna tidhaahdo waan soo aadaynaa nabiga ilaahiyo saasay ku dhaarteen laakiin waa been qul waxaad ku tiraa nabi muxamedow calayhi salaatu wasalaam laa tuqsimuu ha dhaarannina war dhaarta beenta ah waa laga dayriye iska dhaaf hadda qofku inuu inta dhaarto wuxuu ku dhaarto uusan samaynin macnaha waxa weeye qofku inuu dhaar beena dhaarto oo markaa sida uu sameeyo calaamaatulmunaafiqa nabigu markuu tirinayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa xadatha kadaba markuu sheekaynayo munaafiqu been buu sheegayaa buu yidhi wa idaa caahadda qadara hadduu ballan sameeyana ballanta waa ka baxayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqu wa ida tu'mina khaana haddii la aaminona khiyaanu samaynayaahu khaa'in weeye munaafiqu nabigu sidau tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii oo waxa weeye qof xaqiisi kula doodayana faajirnimuu ku dhaqmayaa buu yidhi marka ruuxa munaafiqa waa nuuca dhaar beena buu iska dhaartaa ha dhaarannina ku dhe nabiga ilaahayu dhaarta beenta iska dhaafa daacatun macruufatun khayrun u soo qadaro daacatukum lilaahi wa rasuulihi macruufa daacatun adeecid daacadaasoo macruufatun wanaagsan ayaa khayrun khayr badan nabi moxamed inaad adeecdaan oo aad ka run sheegtaan baa wanaagsan ku dhe baa la yidhi nabiga inaad adeecdaan baa idin khayr badan dhaartii in beentaahood sheegaydaan taas baa idinkaga khayr badan waxaa la yidhaha ilaahay oo la adeeco ilaahay adeeciddiisa waxaa lala xiriiriyey nabi moxamed oo la adeeco waa noo imaan doontaa waxa weeye nabiga in la adeeco hada waa waajib ina allaha ilaahay khabiirun ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid caalim ku ah oo gunta hoose og bay culammadu dhahaan bimaa tacmaluuna shayga aad samaynaysaan ilaahay khabiir buu ku yahay khabiir buu ilaahay ku yahay waa khabiiro ilaahay waa mid u jeeda wax ka qarsoon ma jiraanoo niyadiinna iyo qalbigeenna waxa ku jira ah qul waxaad ku tiraa nabi moxamedow sala allahu calayhi wasalam atiicu allaha war niman yow ilaahay adeeca wa atiicu rasuula nabi moxamedna adeeca biikhlaasi niya wa tarki nifaaq ilaahay adeeca niyad wanaagsan ku adeeca munaafiqnimada iska dhaafa
nabi maxamed adeeco ajiiba amarkiisa sunnadiisana ku dhega hadda ilaahay hal adeeca markii la yidhi waxaa lagu xijiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam leanna ilaahay iyo rasuulka lama kala reebo walaalayaal waxaa la yidhaahdaa ilaahay adeecidiisa waa farad nabi maxamed in la adeecana waa lagu xijiyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay in lagu shukriyahay waa farad oo waa waajib waalidka in lagu shukriyana anishkur lii weli waalidayka qur-aanka waad ujeedaa waa lala xiriiriye baa la yidhi waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay waxa weeye in laga baqo hadda waa la waajibiyey riximka xaqiisa in la iska ilaaliyana ayadana waa lala xiriiriyey waxaa kaloo la yidhaahdaa salaada qur-aanka markuu sheego zekada ayuu la xiriiriyaa marka culummadu waxay dhahaan afartaa baa lala xiriiriyey qul adiicu allaha wa adiicu rasuula rasuulka ilaahayna adeeca fa in tawallow haddii aad jeesataan tatawallow ay ka dhiganta taadaas kala u qadaran fa in tawallow haddii aad jeesataan oo daacada nabi maxamed aad diidaan fa innamaa in kala mahane calayhi nabiga dushiisa waxaa ahaaday maa shaygii xumila lagu xambaaray rasuulka dushiisa waxaa ahaaday shaygii lagu kalifayo nabi maxamed risaalada ummadda inuu usoo gudbiyo oo dacwada u sheego baa dushiisa ahaatay wa calaykum idinkana dushiinna waxaa ahaaday maa shaygii xumiltum laydinku xambaaray shaygii idinkana laydinku xambaaray oo laydinku kalifay min alsamci waataaca waatibaaci amrihi sala allahu calayhi wasalam taas baa idinka dushiinna ahaatay wa in tudiicuuhu nabiga haddii aad adeecdaan tahtaduu hanuuntiineen baa la yidhi waa hanuunaysaan nabi maxamed oo la adeeco sala allahu calayhi wasalam waaba lagu hanuunaa walaalayaal haddii aad adeecdiin baa la yidhi waad hanuunaysaan maxaa la qofka sunnada fara naftiisa qowl ficlan xikmad buu ku dhawaaqayaa hawada qofka raacaana baadil buu ku dhawaaqayaa nabi maxamed qofkii adeecaahi waa hanuunsan yaah nabi maxamed qofkii daba mareeyaahi ilaahay naguma daree qof lunsan buu noqonayaa wa in tudiicuuhu nabi maxamed haddii aad adeecdaan tahtaduu hanuuntiinee waad hanuunaysaan ilaa dariiqi asacaada waalfalaax waddada liibaantaad ku hanuunaysaan weeye wamaa cala arasuuli rasuulka dushiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin mooye balaaqaasu almubiinu cad nabi maxamed dushiisa waxaa ahaatay calayhi salaatu wasalaam altabliiq alwaadix lilumma dadka inuu xaqa u caddeeyo walaa darara calayhi in khaalaftum wa casaytum laakiin haddii nabiga aad khilaaftaan baa la yidhi nabi maxamed dhib ka soo gaari maayo adinkaa dhibku idin soo gaaraya fa innahu qad ballaqa alrisaala wa adda alammaana wa kashafa alqumma wa nasaxa alumma wa jaahada fi llahi xaqa jihaadih xataa aataahu allahu alyaqiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka risaaladii waa gaarsiiyey ammaanadii waa gutay diinta ilaahay waa soo difaacay xaqii waa caddeeyey wamaa cala arasuuli rasuulka dushiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin mooye balaaqaasu almubiinu cad nabi maxamed keliya waxaa laga doonaya calayhi salaatu wasalaam xaqa ummadda inuu u caddeeyo waana u caddeeyey sala allahu calayhi wasalam wacadda allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay mu'miniintii baa loo bishaareeyey oo mufasiriintu aayaddan waxay leeyihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiino asagii asxaabtii soo galeen gaaladii waa kuwa isku dayay inay meel walba weerar uga qaadaan markaasay habeen walba hub bay wataan waa isdifaacayaan cabsi markaas bay dhaheen baa la yidhi waxa weeye war nolol seen ku noolaanaynaa annagoo aamin oo macnaha waxa weeye mudma'iniina oo ilaahay kaliya maahana cid kale aan ka baqayno nabad haysanna war ma la arki doona annagoo nabad haysan nabad ma heli doona abooyu nabad ma heli doona ilaa nabaddu nolosha lagu sheega walaalayaal waa nabad maanta waxa weeye waddankeenna waxa nolosha ka qaaday waa nabad la'aan ilaahu nabad iyo amni iyo waxa weeye dad wanaagsan oo ummadda ilaahay waxa weeye u turaya oo diinta islaamka run sheegaya ilaahayuu dalkeenna noogu reeb inta kale oo ahlu baadilka ah oo dadkii baabi'isay oo maalin walba qaxinaysana ilaahayuu naga saar waxa weeye noloshu waa nabad
sideen maalin oo maalmaha ka mida nabad ku heli doonaa bay asxaabtii dheheen dhibka ilaahay ma naga qaadi doonaa ilaahay baa marka nasri u ballan qaaday oo asxaabtii baa waxa weeye guul iyo nasri inay gaari doonaan baa loo ballan qaaday ilaahay wuxuu u ballan qaaday oo nabigiisa carabkiisa loogu ballan qaado loo sheegay dhulka ayagu inay furan doonaan mashriq iyo maghrib adduunka oo dhanba ayagu inay maamuli doonaan nabiguna waa u bishaareeyey ilaahayna waa u bishaareeyey xadiis oo warinayo imaamu muslim nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha wa ina milka ummatii sayabluqu maa suwiya lii minha buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay dhulka ayuu ii duubay qorraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo ayaa saa inta laygu soo duubay ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa lay tusiye buu yidhi adduunkii o dhan baa lay tusiyey ummaddayda mulkiyadeedu waxay gaari doontaa dhulka inta la ii muujiyo oo dhan qorrax soo bax iyo qorrax dhac oo dhan adduunka adinkaa la wareegi doona nabiga marka bishaaradaas uu saxaabtii u sheegay ilaahayna bishaaradaas buu aayaddaana soo degootoo loogu bishaareeyey aayaddaani waa bishaara oo asxaabta loogu bishaaraynayo ayaga dhulka in la milki siin doono oo la hansiin doono oo gaalada ay ka gacan sarray doonaan oo guusha ay heli doonaan ee aayaddan sidaabuu ilaahay noogu sheegaya wacadda allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina kuwii wuxuu ilaahay u ballan qaaday aamanuu ilaahay rasuul rumeeyey oo minkum idinka mida wa camilu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimid layastakhlifannahum ilaahay ayaga inuu ka khaliif yeeli doono oo maamulka ku wareejin doono fil ardi dhulkana ilaahay uga khaliif yeeli doono kamaa sidii istakhlafa ilaahay uga khaliif yeelay oo kale aladiina kuwii min qablihim ayaga kasii horreeyey dadkii hore oo waxa weeye mu'miniinta ahaa iyo kuwii ayaga kasii horreeyey ilaahay sida uga khaliif yeelay oo dhulka ugu wareejiyey ayuu ayagan ugu wareeji doonaa mu'miniintii ka horreeyey sida gaaladaba ay uga guulaysan jireen baad adinkuna uga guulaysan doontaan ogaada baa layidhi sidaas ilaahayna hadda ballantou qaado kama baxo inna maca alcusri yusran culays mar hadduu yimaado fudayd baa ku xiga ilaahayo culayskii waan aragnay fudaydkii baan kaa sugaynaa wax badan dhib waa lagu soo jiree yusri ilaahay iyo nabad iyo waxa weeye wanaag allah noo soo yeeriyo walayumakkinanna ilaahay makaniyee oo makaniyee lahum ayaga diinahum diintoodu ilaahay makaninayaa alladii diinkaasoo irtadaa lahum oo uga raadi ahaaday ilaa diinta islaamku ilaahay raadi uga noqde islaamkana ilaaha idin makaninaya baa la yidhi casiisan makiinan caaliyan can kulli aladyaan ilaahay wuxuu ka yeelayaa diinta kaliyaho ayada taagan ayuu ilaahay ka dhigayaa baa la yidhi cabsidaan iyo dhibkan aad ku jirtiin asxaabtii baa loo bishaaraynaya laakiin aayaddu mar walba waxay u bishaaraynaysaa hal waqti kuma ekee dadkii ilaahay diintiisa ku toosnaado oo dhan walayubadilannahum ilaahay u bedelee mu'miniintan min bacdi khawfihim cabsidaan ay ku jiraan bacdigeed dhibkan iyo fazacan iyo waxaa ilaahay kabacdi ugu bedelayaa amnan nabadgelyo ilaahay siinaya nabadgelyo ayuu ilaahay siinaya xikmadda intaasoo wanaaga loogu qabta waxa weeye hadda waxa weeye mu'miniintaasu intaasoo wanaaga maxay ku heleen yuwaxiduunanii yacbuduunanii way caabudayaan wanaaggaas waxay ku heleen camal wanaagsan iyo cibaadabay laga helay laa yushrikuuna bii shay-an aniga waxba ila wadaajin mayaan kaligaybay i caabudayaan ilaah kale ila caabudin mayaan saasuu ilaahay ku ammaanay mu'miniinta laakiin intaasoo nicmaa markii la helay kabacdi qofkii gaalooba oo nicmada ilaahay ku kufriya waman kafara qofkii kufriya oo nicmada ilaahay ku kufriya bacda dalika ay bacda dalika alistikhlaaf waltamkiin waltabdiil ilaahay markuu nabad siiyey oo diintii u makaniyey oo dhulkii u dhiibay oo barwaaqo ilaahay siiyey oo muslim ka dhigay dhiiggii kaloo muslimiinta bannaysta waqtigii sayidina cuthmaan la dilay soo bilaabatay dhiiggaa iska daadanaya maalin walba ilaa waqtigaasay nagu socotaa dilku muslimiintu isdhammaynayaan waman kafara bacda dalika fa ulaa'ika humul faasiquuna buu ilaahay leeyihi kuwaa kufriyo oo nicmada ilaahay khilaafa
oo dhiigga muslimiinta banaysta oo nabi maxamed waddadiisa khilaafo calayhi salaatu wasalaam humul faasiquuna waa kuwa faasiqoobay buu ilaahay leeyihi waa faasiqiin daacada ilaahay ka baxay weeye walaysa yucna alkufru billaah nicmada ilaah lagu kufriya aayadda looga jeedaa marka qofkii nicmada ilaahay hadda ku kufriya kafara haadihi nicma faasiquun bay soo gelayaan weeye fa ulaa'ika hum alfaasiquun wa aqiimu salaata ilaahay wuxuu leeyahay war salaada ooga wa aatu zakaata sekadana bixiya fiira waa la isku xijiriy lama kala reebin salaada ooga sekadana bixiya calaa wajhi alakmal aladi yurdi allaha wa adiicu rasuula rasuulka ilaahayna adeeca lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydiin naxariisto raxmadda ilaaha dushiina kusoo degoonaysa markaas gaaladan takaburaysa oo markaa waxa weeye kibirka iyo isla weynigu ku jiro hadday u malaynayaan inay ilaahay ka fakan karaan oo ilaahay cajis gelin karaan yaysan sidaa u malayn ilaahay wuu awoodaa saacad walba amaalkooduna waa naar buu ilaahay leeyahy laa taxsabanna aladiina war kuwii ha u malaynina adinku mu'miniintaahu kafaruu gaaloobay mucjiziina ilaahay kuwa cajis gelin kara nabigaa tasliya looga dhigayaa iyo mu'miniintoo dhan oo nabi moxamed iyo asxaabtiisa ha u malaynina gaaladan xumoo gaaloobay mucjiziina ilaahay inay cajis gelin karaan fil ardi dhulka inay ilaahay ku cajis gelin karaan laa taxsibana aladiina kafaruu mucjiziina fi lardi dhulka inay ilaahay ka fakan karaan macnaha wa ma'waahum annaaru makaanu dubankoodu naar weeyi meeshay u laabanayaani wala bi'sa almasiiru meel la ahaado oo loo laabtana naarta ugu xumaan badan ilaahan ka magan galnay allahuma najinaa min annaar meel loo laabto naar baa ugu xun yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu waxay ku soo degoota baa la yidhi wiil buu diray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ansaarta ka mida oo la yidhaha mudlij sayidinaa cumar buu u diray sayid cumar igu soo yeer buu yidhi wakti duhurkii ah sayidinaa cumar oo gurigiisii jiifa albaabkii soo gargaraacay waa soo gudbay markii laga furi waayuu soo gudbay sayid cumaroo markaa waxa weeye mara jiifabuu usoo galay baa la yidhi oo hurdaya albaabkii soo gargaraacay sayid cumar markuu usoo galo baraarugay waa fariista jirkiisiyaa meel ka banaanato cawradiisiya meel xogay maradu ka banaanaatay markaasuu ka xumaaday sayidinaa cumar markaasuu sayidinaa cumar wuxuu yidhi waxaan jecelaha buu yidhi ilaahay inuu ka reebo abnaa'anaa wa nisaa'anaa wa khudamanaa can addukhuuli fi hadihi asaacaat ila biidni waqtiyadaanoo kaleeto ilaa annagoo idan la-aan inaysan noo soo geli karin ilaahay inuu aayad soo dejiyo ka hadlayda ilmaheennu inaysan noo soo geli karin iyo dumarka iyo gabdhaheenna iyo saas maalanba dumarka saasaa looga jeedaa iyo khaadimiinteenna ilaa idan inay ku soo galaan maahan saasuu yidhi sayidina cumar uu soo baxay rasuulkiiba u yimid aayaddan baaba soo degootay aayaddu waa tan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaah iyo rasuul rumeeyow liyasta'dinkum aladiina kuwii idan ha dalbeen malakad ay milkisay aymaanukum adinka gacmihiinnu addoommada ay milkiyeen amar ku siiya markay idiin soo gelayaan awqaadahan soo socda idan ha dalbeen oo macnaha waxa weeye xugunkan fara weeye addoommadiinna adinku aad milkidaan iyo waladiina ilmihii lam yabluqu lxuluma aan gaarin xulumka aan gaarin xulumka waxaa la yidhi xulumku muxuu yaha baa la yidhi xulumku waxa weeye alixtilaamu fi lmanaam qofku wiilku inuu noqdo canug weyn inuu noqdo ama gabadha ama wiilku maalanba ou canugu noqdo canug gaari ixtilaamba ou noqdo zabankii buluuqana culummada qaar baa tidhaahda oo macnaha waxa weeye dhadhab bay culummadu dhahan macnaha qof inta qarow isagoo qarow ku jira isku junubi kara xadka inuu soo gaaray weeye maalanba marka ilmaha xulumka aan weli iyagu gaarin laakiin cad noqday canug cadaho caqli la noqday oo macnaha waxa weeye ka hadlin kara hadduu cawra bannaan iyo arko ayagana ha la faro oo minkum xaggiina ka ahaaday ayagana ha la faro idan inay dalbaan 3 maraat 3 mar 3 waqti baa leeyahay
saddexdaa waqti idan la'aan ha noo soo gelinina idan la'aan ha soo gelinina weeyaan hadda ilmahaas xulumka la leeyahay aan gaarin waa ilmihii waxa weeye nimanka waaweyn oo xorka ah oo qaangaaradaa weli aan gaarin ma qaangaarin weli saddex waqti 3 maraat saddexdii waqti waatan min qabli salaati alfajri salaada subax horteed macnaha qofku markuu hurdada ka soo kaco min qabli salaati alfajri fi leyli waqta nawmikum wa khuluudikum ila araaxa waqtigaas waxa weeye salaadii hadda jiifka uu ka soo kacay weeyaan waqtigaa jiifka uu ka soo kacay iyo waxiina waqtigii tadacuuna aad dejinaysaan thiyaabakum dharkiin waqtiga qofku uu qayluushanayo min adhahirati min ajli adhahiira aad u dejinaysaan kulaylka waqtiga qoraxdu ay kala barka tahay oo macnaha nisfu nahaarka ah ayaa la yidhaha waqtu dhahiira la yidhaahdaa kulaylka dartii oo qofku markaa waxa weeye maradiisi jirka uga qaadayo iyo wa min bacdi salaati alcishaa'i cishaha salaadiisa bacdigiis marka uu isku diyaarinayo in uu jiifto weeye saddexdaas mar waa waqtiga aad jiifo rabtaan 3 cawraatin hiya awqaadaasu 3 cawraatin waa 3 awqaatin يختل فيها تستركم العورات فيها بادية والتكشف فيها غالب فعلموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات إلا باستئذان 3 عورات سدح وقتي أو قفك عوردي سؤيني بناناتو لغايا بوي عورات كاسو لكم أديك إدين سغناضي marka saddexdan waqtiga salaad cisho la tukado la jiifan rabo waqtiga duhurka ay tahay oo qofku xogaa yar oo kulaylka macnaha meel uga nasanayo iyo salaada subax markuu hurdada ka soo kaco oo dharkiisa inuu xirto oo rabo saddexdaas waqti oo laga yaabo qofka cawradiisa inay banaanaato ilmaha cadadka noqday iyo waxa weeye addoommada kuwa iyaga naftooda yaryarkaa baa laga hadlayaa iyo kuwaasoo kaleeto maalan waxaad fartiin baa la yidhi in ay idan dalbaan waana sunno sida in la yidhaahdo waa sunno weeye laysa calaykum dushiina ma ahaanin walaa calayhim ayaga dushoodana ma ahaanin adinka iyo addoommadii iyo carruurtii dushiina dembi ma ahaanin junaaxun dembi bacdahunna awqaaddaa bacdigood inay idiin soo galaan idan la'aan wax dhiba ka iman mayso oo awqaaddaa macnaha waxa weeye kayrkood waa idiin soo geli karaan weeyaan waa idiin soo geli karaan iyadoon idan la samaynin awqaaddan macnaha maahan mararka kaleeto waa idiin soo geli karaan hadda waxaa la yidhi saddexdan waqti baa la yidhi idan fara baa horta la yidhi waxa weeye waa inaad idan siidaan idankaas marka waxaa la yidhi la siinayo oo la leeyahay amarkan siiya idan ha dalbeen waa calaa nadbi baa la yidhaahdaa inaad arrintaa macnaha waa sunno qolana waxay leeyihiin waa waajib baa la yidhi waana sida owlaha bay dheheen waa sida owladaa weeyaan marka saddexdan waqti waa 3 cawraat maxaa yeelay salaada subax hadda waqtigeeda midda ugu horeyda saddexda waqti waxaa la yidhi waa min qabli salaati alfajri baa la yidhi waa waqtu alqiyaam min almadaajic qofku markuu jiif ka soo kaco oo dharkiisii hurdada uu iska dhigayo oo dhar kale oo soo jeedka uu qaadanayo duhurkii marka la jiifanayana asagana waxa weeye xoga inuu nasto ayuu doonayaa markaasoo kaleetana waqtu bacda salaati alcishaana waa markuu doonayo in uu jiifto dharkuu ku jiifa lahay buu markaa xidhanayaa saddexdaa marka waqti idankaa inay bartaan ku tarbiyeeya ilmihiina yaryarkaa iyo kuwaasoo kaleeto ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laysa calaykum walaa calayhim addoommadii iyo ilmihii dushooda iyo adinka dushiinaba dembi ma ahaanin junaaxun wax dembiya ma ahaanin in ay idiin soo galaan bacdahunna ay bacda alawqaati 3 maxaa yeelay hum ayagu dawaafuuna waa kuwo wareegid badan calaykum dushiinna oo adinka idiin khidmaynayaan waa idiin soo gelayaan gurigiibay imaanayaan waa ku soo wareegayaan saasaa looga jeedaa weeyaan hadda laysa calaykum marka la leeyahay ay fii tamkiinihim min addukhuuli calaykum walaa calayhim wax dhiba kuma jirta baa la yidhi
waa ilmihii yararka ahay ama addoommadii qaangaaradaha ayaga mar walba idan bay macnaha amarkooda waa cadyaho hadda waxa weeye idan bay dalbayaan laysa calaykum walaa calayhim junaaxun bacdahunna bacda alawqaati halaath dawaafuuna hum ayagu dawaafuuna calaykum korkiina kuwa ku soo wareegaya weeyaan kuwa ku dawaafid badan oo korkiina macnaha waxa weeye ku dawaafaya baa la yidhi waa korkiina kuwa ku dawaafaya weeye bacdukum qaarkood daa'ifun waa mid dawaafaya calaa bacdin macnaha waxa weeye qaar adinka idin ka mid a kuwa kaloo ku dawaafaya waa macnaha qolaba qolay u soo gelaysaa addoommadiinni ilmihiinni yarka taasoo kaleeto ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala kadalika masaladaas ilaahay siduu noogu caddeeyo oo kale ayuu yubayinu allahu ilaahay u caddeeyaa lakum adinka aayaatihi aayaadkiisau ilaahay mar walba idin caddaynaya weeyaan alaxkaam asharciya litata'adabuu biha si aad uga edeeb yeelataan ilahay waa idin caddaynaya mar walba idiin soo gelayaan qudwatan wa cashiya bikayri idnin idan la-aan bay ku soo gelayaan ilaa 3 waqti maahan ilaahayna waa idin caddaynaya xukunka wallahu ilaahay xakiimun waa mid waxaan rabaa caliimun waa mid ogaansho badan xakiimun ee xikmad badan oo shay walba u samaynayo iyo maamulkiisa xikmad u sameeya ilmihii saqiirada markay ahaayeen baa la sheegay hadday ilmo waaweyn oo qaangaaraa yihiin hadda idan baa laga rabaahoo kuwii kaloo ka waaweynaa oo ka horreeyey markii waxa weeye qaangaar canuga saqiirka au noqdo midka qaangaarka ah soo mar walba idan ma dalbayo oo hore uma annaan soo marin kan yarna markuu qaangaaro idankaasoo kalea laga rabaa wa idaa balaqa al atfaalu ilmaha yaryarkaahu hadday qaangaaraan oo minkum adinka xaggiinna ka ahaaday alxuluma xulumka hadday gaaraanoo ixtilaam ay gaaraanoo masalanba isagoo qarwayo oo calwasaadaya inuu isku junubo oo gaaro waa qaangaar markaase haddayba xulumkaa gaaraan waa qaangaareene waa dad waaweyne falyasta'dinuu idan ha dalbaan markay waalidkooda ay u soo gelayaan hooyadood iyo aabbahood iyo ilmaha waaweyn iyo gabadhiyo wiilka weyn idan ha dalbeen kama sta'dana aladiina kuwii siday idanka u dalbayeen oo kale min qablihim ayaga ka sii horreeyey facallimuuhum alaadaaba asaamiya an yasta'dinuu fi kulli alawqaat mar walba oy kuu soo gelayaan idan baa la rabaa hadda ka horna waa soo marnay kadalika sidaasoo kale buu yubayinu allahu ilaahay u caddaynayaa lakum adinka aayaatihi ilaahay aayaadkiisa wou idiin caddaynayaa weeye iyo umuurta shareecadiisa iyo diintiisa wallahu ilaahay caliimun waa mid ogaansho badan xakiimun ee xikmad badan horena waa u soo marnay fiiri wallahu caliimun xakiimun ayaddaana wallahu caliimun xakiimun isku sibaa labada aayad ku dhammaadeen ilaahay waa mid ogaansho badan oo xikmad badan caliimun bikhalqihi xakiimun fi tashriicihi imaamu albaydaawi wuxuu yidhi kararahu ta'kiidan wa mubaalaqa fi lamri bilistidaan waalqawaacidu ayaddaana waxaa looga hadlayaa hooyooyinka waaweyn oo markaa waxa weeye ka fadhiistay baa la yidhi hooyooyinka waaweyn oo cajaa'ista noqday oo ayagu aan tasarruf iyo da'doodii weynaato guur dambe ay dalbaan iyo ilmo dambe ay dhalaan iyo midnaba aysan jirin oo ka xayd dambe ku dhaca iyo carruur ay dhalaan iyo arrimahaasoo dhan waa hore ka quustoo ka fadhiistay xagga asturaadda marka la yidhaahdo gabdhaha kale sida ay la rabo jirkooda inay u qariyaan ayagu la mid maaha quruxdeedii iyo muuqaalkeedii way asturee laakiin dharkii badnaayoo kulli jirka lagu wada asturayey ayada inay qayb ka mida iska dejido ayay shareecadu u fasaxda weeyaan maxaa yeelay ishtihihii iyo fiirintii iyo waxa weeye nuucaa oo sida qofka kaleeto ayadu ma ahan baa la yidhi oo markaa lama sinna buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waalqawaacidu hooyooyinka waaweyn baa la yidhi oo fadhiistay oo ka fadhiistay dhalid iyo tasarruf guurdalbid arrimahaasoo dhan waa hore gacanta ka taagay oo min annisaa'i dumarka ah kuwa fadhiista oo can ilxaydi waalwaladi waatasarufi
وضلب الزواج كفريستي oo min annisaa'i dumarka ka mid ah allaatii kuwaasoo laa yarjuuna nikaaxan nikaaxba aan rajaynayn oo guur aan damcayn oo ayagana aan la damcayn lincidaami dawaafici shahwati fiihi wax shahwo macnaha keeno oo dhan ayayba waayeen dumarka noocaa ah falaysa calayhinna dushooda ma ahaanin buu ilaahay yidhi junaaxun dembi ma ahaanin an yadacna inay dejiyaan hiyaabahunna dharkooda inay dejiyaan dharkoodii kor ay jirkooda markay asturkii xiratay maradii kale kor kasii huwatay ayadoo jirkeeda u wada qarsoon yahay oo qoorta u qarsoon tahay oo madaxu u qarsoon yahay oo jirkeedan kale u dadan yahay laakiin maryo kaleoo kor laga sii saaran ay wadatay maradii kale oo kor aheed inay iska dhigto dembi uga iman maayo an yadacna hiyaabahunna dharkoodii inay dejiyaan buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa dharkaas midka la sheegayaa hayra mutabarrijaatin kuwa muujinaya hayrkood xaalay yihiin biziinatin quruxdoodii bannaanka soo dhigin mayaan naftoodu oo ziinadoodii iyo quruxdeedii ilaahay u abuuray iyo jirkeedii rasmiga ahay macnaha ma muujinayso ma soo saaraysa baa la yidhi waxa weeye falaysa laa xaraja walaa isma calayhina fi an yadacna bacda hiyaabihina ka ridaa garbasaarkii kore iyo maradii kore oo asturka aheed oo jalbaabkii koreeto iyo oo dharkoodii caadiga ahay oo aan intibaah in loo ama ijtihaab macnaha aan keeni karin ay iska wadataa kii kaloo koray bisay dejinaysaa weeye laakiin ziinadeedii ma soo muujinaysa baa la yidhi wa xaqiiqatu tabaruj idhaaru maa yajibu ikhfaa'uhu wixii in la qariyo qasab ay aheed macnaha waxa weeye jirkeediiyay muujinayl ma aha jirkeeda meel kama muuqdo waa qarsoon yaha laakiin dharkii koreeto oo waaweynayo kor la iska sii saaray bay iska dhigaysaa weeyaan kaas way iska dhigi kartaa baa la yidhi wa an yastacfifna laakiin in ay dhowrsadaan oo ay go-eeda koreba aysan iska dhigin oo dharkeeda ay qaadato sida gabadha dhallinyarada ah oo kale ay u xiranayso oo isku qarqarinayso kamaa talbisuhu shaabaatu min annisaa sida kuwa dhallinyarada isku asturaan hooyooyinka waaweynu in ayaguna ay isku xirxiraan oo kale oo dhowrsadaan baa khayrun lahunna sidaasaa u khayr badan buu ilaahay leeyahy taas baa khayr badan middaas baa usii khayr badanba tacafuf ayaa u khayr badan waaskaa cinda allaahi wa adharu taasaa usii wanaag badan wallaahu ilaahay samiicun waa mid maqlid badan wax walboo lagu qowlo caliimun ogaan badan wax walboo la sameeyo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laysa cala alacmaa midka indhoolkaa dushiisa ma ahaanin xarajun dembi walaa cala alacraji midka jiiskaa dushiisana ma ahaanin xarajun dembi walaa cala almariidi qofka jiran dushiisana ma ahaanin xarajun dembi indhoolkiiyo jiiskiiyo qofka jiran xaraj walaa ismun fi lqucuudi can alqaswi duulaanka gaalada lagu jihaadayo in ay ka haraan wax dembiya uga iman maayo waa lidacfihim wa cajzihim cudurdaar bay leeyihiin maxaa yeele waa daciif weeyaan waa daciif marka wax dembiya intaasoo dhan uga iman mayso sidaas waa lagu fasiraa waxa kaloo taas waa lagu fasiraa baa la yidhi wax xaraj ah oo uga imaanaya ma jiraan waa sidaasoo kaleeta weeyaan wa ruba cajuusin shamdaa yabduu minha alxarsu calaa an yadhara biha jamaalun marka waxa weeye wax dembiya intaasoo dhan uga imaan maayo baa la yidhi wax dembiya uga imaan maayo laysa cala alacmaa xarajun waxaa la yidhi aayaddan baa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay intaasoo dhan waxa weeye wax xaraja ma ahaanintaas jihaadkii waa annaga hadda ku fasirnay waxaa kaloo la yidhaahdaa in wax lala cuno oo qof jiisa iyo qof indhoola iyo qof jiran iyo inaad cunto la cunto ayadana wax xaraja ma ahaanin culammadu aayaddan way isku khilaafeen cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi ilaahay markuu soo dejiyey ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili muslimiintu markii aayaddaas soo degootay maalkiina dhexdiina baadil ha ku cuninina
ayaa waxaa la yidhi muslimiintu waxay ka baqeen qof jiran iyo qof jiisa iyo indhool iyo in wax lala cuno oo waxay dhaheen cuntadu waa midda xoolaha ugu fiican maalka in baadil lagu cunona ilaahay waa diiday indhoolku wax uma jeedo cuntada meesha u fiican uma jeedo waa laga dhammaysan karaa marka haddaan qof indhoola wax la cuno ama mid jiisahoon intuu fadhiisanayo cuntada laga dhammaysanayo wax la cuno oo dadka aan isku cidhiiri karin ama mid jiran oo xanuunsan oo aan wax fiican qaada karin cuntadii aan la cuno xaq baa iraacaya bay dhaheen marka intii xaqna raaci lahay waxba la cuni mayno aayaddan baa soo degootay laysa cala alacmaa xaraj laysa cala almu'aakalati fi alacmaa xaraj qof indhoola in wax lala cuno dhib male waad la cuni kartaa waa walaalka indhoolku midka jiiska ah waa walaalka midka xanuunsanna waa walaalka kulli waa la cuni kartiin weeyaan aayaddaas baa soo degootay waxaa kaloo saas waa lagu fasiraa marka taasoo kale fasirkaas way leedahay weeyi fasiro kalena way jiraan tii hadda aan ku soo fasirnay oo ahayd ayaga naftoodu jihaadka inay ka haraan oo qofka indhoolka iyo midka jiiska iyo midka xanuunsan maadaama cudurdaar ay leeyihiin wax dembiya uga iman mayo in la yidhaahdana ayada nafteedu waa suuragal oo wanagii hadda soo qaadanayna weeyi waxaa la yidhi waxay kaloo ayadda u soo degoota baa la yidhi tarqiisan lihaa'ulaa'i fi lakli min buyuuti man sama allahu fi hadihi alaaya wadalika ana haؤulaa'i kanuu yadkhuluuna cala arajul lidalabi الطacaam faida lam yakun cindahu shayءun dahaba bihim ila beyti abiihi ow beyti ummihi ow bacdi man sama allahu fi hadihi alaaya fakana ahlu الzamana yataxarajuuna min dalik wayaquluuna dahaba bina ila kayri beyti tanaa soo degootay ayadana waa la yidhaahdaa waxaa la yidhi waxay ku soo degootay ruksatan lihaa'ulaa'i fi atakhalluf can aljihaad taasaan ka soo qaadanaynaa jihaadku kaleeto iyo ilaahay wuxuuna leeyaho kaleeto subxaanahu wa tacaala walaa calaa anfusikum naftiinana dusheeda dembi ma ahaanin an ta'kuluu in aad cuntaan buu ilaahay leeyahay min buyuutikum guryihiinna inaad wax ka cuntaan min buyuutikumta maxaa looga jeedaa min buyuutikumta waxa weeye waa adiga gurigaagii wiilkaaga iyo carruurtaadu ay lahaayeen maxaa yeelay weladkaagu kasabkaagiibuu ka mid yaha weeye kasabkaagiibuu ka mid yahay maxaa yeele aayaddaa hore markay soo degootay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadil muslimiintu waxay dhaheen baadil in maalka lagu cuno waa la diiday marka annagu qof bini aadama gurigiisa waxba ka cunin mayno aayadahaanoo marka ilaahay soo dejiyo waxaa la yidhi war waad ka cuni kartaa gurigii carruurtaada inaad wax ka cuntiin wax dhiba male ow buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaalkiina guryahooda ow buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiina guryahooda ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin guryahooda ow buyuuti akhawaatikum gabdhaha idinla dhashay guryahooda ow buyuuti acmaamikum adeeradiina guryahooda ow buyuuti cammaatikum eedayaal guryahooda ow buyuuti akhwaalikum abtiyaal guryahooda ow buyuuti khaalaatikum khabaryaro guryahooda macnaha dadkaasoo dhan qofkii waxa weeye adiga hadda cuntadii iyo gurigii iyo kaaga raadi ah wax dhibaata male baa la yidhi waad ka cuni kartaa weeyaan waad ka cuni kartaan baa la yidhi ow maa malaktum ama shaygii adinku aad milkideen mafaatixahu furayaalkiis oo waa gurigii adigu furihiisa adaaba milkiyey furihiisiibaaba laguu dhiibay adigaaba wakiil lagaaga dhigo waxaa lagu yidhi adiga ayaa maqaayadan iyo maamulkeeda idaa wakiil ka ah iisee xafid baa lagu yidhi macnaha waxa weeye waxay ahaa jireen baa la yidhi wakiil bay qof bay uga tega jireen markay meel iyo jihaad iyo meel markay ugu baxayaan qof bay uga tega jireen baa la yidhi fayadkhulu fiiha buyuut alawlaad lianna bayt alwalad ka beytihi nabigu wuxuu yidhi ina adyaba maa ya'kulu almar'u min kasbih qofku wuxuu wax ka cuno waxaa ugu wanaagsan kasabkiis weladkaaguna wuxuu ku jiraa kasabkaagii ow maa malaktum mafaatixahudaa waa xoolihii adinka wakiil laydinkaga dhigay oo furiheeda laydiin dhiibay qofkii lahay markuu maqan yahay ummuna caaisha waxay tidhi waxay ahaan jireen muslimiintu nabigay jihaadka u raacayaan sala allahu calayhi wasalam markaasay xoolahoodii furihii waxay u dhiibayaan dad bay dhahaya ay odhanayaan adigaa macnaha xoolahan iga sii wakiilahoo adigaa macnaha aan kuusii dhiibtay
markaasi waxay dhihi jireen qad axlalnaa lakum alakla minha hadde xoolahan aan kuu dhiibay haddaad u baahato inaad wax ka cunto fasaxaad u qabtaa waa kuu xalaalayn kii loo dhiibaa marka wuxuu leeyahay laa yaxilu lanaa an naakula inaan wax ka cunno nooma bannaana innahum aadinuu lanaa can kayri diibi anfusihim ayagoon ku qanacsanayn bay noo dhiibeen wa innamaa naxnu umanaa ayaddan baa marka soo degooto ow maa malaktum mafaatixahu shaygii adinka aad milkiseen baa la yidhi furayaalkiisa wax waad ka cuni kartaan weeye ow sadiiqikum adinka saaxiibkiinnii macnaha saaxiibadiinna guryahooda cunto waa ka cuni kartaan haddii waxa weeye saaxiibkaaga gurigiisa aad soo gasho wax waa ka cuni kartaa weeye dadkaasoo dhan hadda waxa weeye waa dad la og yahay waa waalidkaagii inaad gurigooda wax ka dhadhamiso wax dhiba male ama wax ka cunto waa dad raadi kaaga wada ah oo riximkaagii ah wax waa ka cuni kartaa baa la yidhi ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laysa calaykum junaaxun dushiinna ma ahaanin wax dembi ah an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican xaal aad tihiin kuwa kulunsan oo ashtaatan ama kala tagsan dembi idinkaga imaan maayo cuntada inaad isla cuntaan adinkoo kulansan ama adinkoo halhala aad wax cuntaan ayaddani waxay ku soo degoota baa la yidhi qolo reer Kinaana ka mid ah wuxuu ahaan jiray nin ka miduhu keligii cunto ma cunayo maalinkaasoo dhan wuu joogayaa qof wax la cuna hadduu waayo waxba cunin maayo geelow lisaya caanihiisa qof la cabba hadduu waayo deeqsinimo intay ka qabaan hadduu qof wax la cuna waayo ama wax la cabba maba cabayo wuu qadayaaba ilaahay markaasu wuxuu caddaynayaa arrintaas in aysan ahayn wax shareecadu kugu qasabtay qof xitaa wax kula cuna haddaad weydo ood wax ku sadaqaysato kaligaa wax waa cuni kartaa kalina wax waa loo cuni karaa inkastoo jamacu marka walba baraka badan yahay fa idaa dakhaltum buyuutan gurya haddii aad gashaan buu ilaahay leeyahay oo daddegan yahay fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna salaama walaalkaa naftaaduu la mid yahay bimacnaa sallimuu calaa man fiiha min annaas dadka ku jira salaamaa looga jeedaa assalaamu calaykum la yidhaahdo dadka ku jira baa la salaamayaa weeyi salaama taxiyatan salaamku salaama taxiyadaasoo min cindi illaahi rabbi agtiisa ka ahaatay taxiyadaasoo mubaarakatan la barakeeyey taxiyada oo duco wadata taxiyadaasoo dayibatan wanaagsan oo barakaysan ku salaama assalaamu calaykum waa taxiyada islaamka almubaaraka aldayiba allatii sharaca allahu licibaadihi almu'miniin waa salaamta islaamka weeyaan kadalika sidaasoo kaleu yubayinu allahu ilaahay idinkugu caddaynayaa lakum alaayaati aayaadkiisa qur'aanka ilaahay sidaasuu idinkugu caddaynayaa oo suuradaha iyo axkaamta qur'aanka iyo kulligood iyo aayadaha caafimaadka si loogu cibro qaato sidaasuu ilaahay noogu caddaynaya lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad wax garataan oo aad wax fahamtaan innamaa in kala maahane almu'minuuna mu'miniinta kaamilka adawaatulxasri baa la yidhaahdaa dadka mu'miniinta howan wanaagsan oo iimaankoodu buuxo alladiina waa qoladii aamanuu billaahi ilaahay rumeeyey wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana rumeeyey waa dadka iimaankoodu dhammaystiran yahay ilaahu dad iimaankoodu dhammaystiran yahay nagu dar iimaan kaamila ilaahu nasi wa idaa kaanuu hadday ahaadaan baa la yidhi macahu nabi moxamed la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam calaa amrin amar dushii hadday ku ahaadaan amarkaasoo jaamicin ummadda kulminaya amrin haamin fiihi maslaxatun lilmuslimiin amar waxa weeye jaamica hadday nabi moxamed la jirkiisa ku ahaadaan sala allahu calayhi wasalam macnaha khudbatuljumca oo kale weeye maalan khudbadii jumcaduu nabigu akrinayaa waa amrin jaamicin linnaas ummadoo dhan amar kulminayo weeye ciidaha oo kale iyo maalan ba nabigiibaa jumcadiiba u akrinayaa salaadiiba ummadda tujinayaa asxaabtiibuu maalan ba la showrayaa ilaa nabigu markuu mimbarka maalinka jumcadaa fuulo oo qof kamida ou doono masjidka inuu ka baxo xaajo iyo cudurdaar iyo ma bixi jirin ilaa nabiga wejigiisa uu soo istaago oo marka idan buu dalbi jiray weeyi aayaddan marka noocaas bay ka hadlaysaa wa idaa kaanuu hadday ahaadaan mu'miniintaasu macahu nabiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam
calaa amrin amar dushi hadday ku ahaadaan amarkaasoo jaamicin ummadda kulminayo dadku u soo kulmaan lam yadhabuu ma tegayaan baa la yidhi mu'miniintaa lagu ammaanay xataa yasta'dinuuhu ilaa nabi moxamed ay idan ka dalbaan maba tegayaanba weeye oo nabigoon fasixin ma iska baxayaan sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi aayaddaani waxay soo degootay godkii khandaqa markii la qodayey mu'miniintii qaar baa nabiga idan uga dalbay in ay macnaha ay xaajadooda u baxaan munaafiqiintuna idan la'aan bay iska tegayeen marka mu'minkii waxaa lagu ammaanay nabiga idan la'aantiisa inaysan meel iska aadaynba mu'miniintana waxaa lagu ceebeeyey idan la'aan bay iska baxaan nabi moxamed ma xurmaynayaan sala allahu calayhi wasalam ilaahay marka wuxuu leeyahay mu'miniintaasu lam yadhabuu xataa yasta'dinuuhu nabiga ilaa idan ay ka dalbaan ma tegayaan baa la yidhi ina aladiina kuwii yasta'dinuunaka nabi moxamedow kuwa idanka kaa dalbaya oo markay rabaan inay dan u baxaan ku odhanaya rasuulka ilaahay oo ma bixi karnaa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa qoladii yu'minuuna billaahi wa rasuulihi waa qolada ilaahay iyo rasuulkiisa dhabnimo u rumaynaya maa sha allah waa qolada ilaahay iyo nabigiisa rumaysan sala allahu calayhi wasalam fa ida ista'danuuka idan hadday kaa dalbaan libacdi sha'nihim arrintoodii qaar ka mida idan hadday kaaga dalbaan fa'dan ufasax liman shi'ta qofkii adugu aad doonto oo minhum ayaga ka mida oo inuu tago aad u oggolaato ood xigmad iyo maslaxa inay ku jirto u aragto adigaa arrintaa idan fasax u qabee idan baa li nabiga ilaahayo wastakfir lahumullaha ilaahayna dembi dhaaf uga dalab oo u duceey bilcafwi waalmaqfira maxaa yeelay idanku walow cudurba ha ku jiree waa qusuur baa ku jiraa la yidhi maxaa yeelay amarkii adduunyadoo diinta laga hormariyo weeyi ilaa nabi moxamed baa taagan qofka iska tegayaaho marka xoogay qusuur gaboodfal yar baa meeshaa ku jira baa la yidhi ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dembi dhaafid badan raxiimun oo raxmad badan subxaanahu wa tacaala laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda aayaddaanna ilaahay wuxuu leeyahay marka adinku aad isku yeeraysaan ood qofka u yeerayso waxaa la yidhaha hebelow nabi moxamed laakiin marka loo yeerayo yaa muxamed lama dhihi karo sala allahu calayhi wasalam nabiga marka loo yeerayo yaa muxamed lama dhihi karo sida annagu markaan isku yeeraynoo kaleeto yaa fulaan loo yidhaahdo nabi moxamed yaa moxamed lama yidhaahdo yaa nebiy allah yaa rasuul allah ayaa loogu yeedhaa sida ilaahayba qur'aanka meel walbo nabi moxamed loogu nidaynayo yaa moxamed qur'aanka kuma jirto sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axalla allah waad aragtay yaa ayuha annabiyu idaa dallaqtum nnisaa yaa ayuha annabiyu jaahidi lkufaara yaa ayuha annabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira yaa ayuha arasuulu balliq maa unsila ilayka marna nabiga waxaa loogu yeeraya calayhi salaatu wasalaam rasuul marna nabi baa loogu yeeraya laakiin ambiyada kaloo ilaahay marka loo nidaynayo yaa ibraahiim acrid can haada yuusufu acrid can haada qiila yaa nuuxu hbit bisalaamin mina wa barakaatin calayka wa calaa umamin miman macak wa qulnaa yaa aadamu uskun anta wa sawjuka aljanna waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummii ilaahayni min duuni illah bal fiiri nabiyullaahi ciisa magaciisa loogu yeeray nebi aadam magaciisa loogu yeeray nebi ibraahim magaciisa loogu yeeray nebi yuusuf magaciisa loogu yeeray nebi nuux magaciisa loogu yeeray laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annabiyu iyo yaa ayuha arasuulu baa loogu yeeray leanna nabigu calayhi salaatu wasalaam ambiyada oo dhan waa nabigii ugu fadliga badnaa nabi ka fadli badani ma jiro xataa nabi moxamed wuxuu ka fadli badan yahay malaa'igtoo dhan buu ka fadli badan yahay ambiyada oo dhanna waa ka fadli badan yahay sala allahu calayhi wasalam marka loo yeerayo laba macno aayaddan ku jirta baa la yidhi adiga markii qof kuu yeedho xoogaa yar baad soo daahdaa
oo waxa weeye danahaaga inta soo dhadhamaystad u timaad soo maaha nabi maxamed markuu ku yeero xataa adoo salaad ku jira hadduu ku yeero nabiga waad ajiibaysa sallallahu alayhi wasallam lagama soo daahayo midda kale nabiga marka loo yeerayo magaca qofka loogu yeero kale ha ka dhigin qof markaad u yeerayso hebelow baad tiraahdaa laakiin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hebelow lama dhihi karo sallallahu alayhi wasallam ya muhammad mathalan lama dhihi karo laa tajcaluu ha yeelinina ducaa'a arasuuli nabi maxamed ama rasuulka ilaah u yeeridiisa oo baynakum dhexdiinna ahaatay ka ducaa'i bacdikum qaarkin yeeridiisa oo kale bacdan qaybta kale oo u yeero saasoo kale ha kala mid dhiginina maxaa yeele dadkii aan ilaa bacdi jufaati man aslama kaana yaqulu kuwa aan islaamka warqabin ya maxamed dhihi jiraa layidhi saasaa loo diidi jira marka qad xaqiiqanime yaclamu allahu ilaahay waa ogsoon yahay aladiina kuwii yatasallaluuna siibsiibanaya oo minkum idinka mida waxa weeye kuwa siibsiibanaya oo minkum idinka mida liwaadan si macnaha waxa weeye ganbasho ah iyo magangal kuwa u baxbaxaya tartiib tartiib furdug dhuumanaya oo waxaa jira kuwa tartiib u baxayay oo isqarinaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbadii intuu ku jiro tartiib u dhuumanaya kuwa sidaas yeelaya oo munaafiqnimada ku dhaqmaya ilaahay waa ka warqabaa baa la yidhi falyaxdar aladiina kuwii ha ka digtoonaadeen yukhaalifuuna khilaafayey can amrihi nabiga amarkiisa iyo sunnadiisa an tusiibahum fitna inay asiibto oo balaayo iyo musiiba ay ku dhacdo cadiima fi dunya ow yanaalahum cadaabun shadiidun fi laakhira ow yusiibahum ama ou asiibo cadaabun cadaabkaasu aliimun ay mu'limun xanuujinaya buu ilahay lehy subxaana wa tacala ha ka baqeen fitna asiibayda qofkii nabiga khilaafa calayhi salaatu wasalaam oo nabi maxamed sunnadiisa khilaafa oo nabi maxamed dabamareeye sala allahu alayhi wasalam hadda fitna midda ugu weyn baa ku dhacaysa weeyaan bala'an cadiiman baa ku dhacaysaba weeye cadaabta ilahay wax ka weyno ma jiraan iyo carada ilaahay taas baana ku dhacaysa baa la yidhi maxaa yeele waxa weeye nabi maxamed iyo waddadii ilaahay raadi ka ahay buu khilaafay marka ilaahay masaa'ib buu kusoo dirayaaba alaa hoy baraaruge inna lilaahi ilaahay wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqa ku sugan iyo walardi dhulka ilaahay baa milkiya qad xaqiiqanime yaclamu ilaahay wuxuu ogsoon yahay maa shaygii antum adinku aad ku sugan tihiin mukallafiinay calayhi maaga dushiisa qofka mu'minka ah qofka gaalka ah qofka daalimka ah qofka daacadda ah qofka mujrimka ah qofka xaq ku taagan qofka baadil ku taagan qofka caduwullaahi ah qofka xabiibullaahi ah ilaahay baa ka warqaba subxaanahu wa tacaala qofka daacadnimo diinta u difaacaya iyo qofka dan kale iyo dulmi kale iyo adduunyo iyo kursi raadinaya ilaahay baa caalim ku ah ilaahay wuxuu kaloo og yahay wa yowma maalinkii yurjacuuna la celinayo dadka ilayhi xaggiisa loo celinayo maalinka dadka oo dhan ilaah rabbi xaggiisa loo soo celinayo oo dadka ilaahay la hor keenayo ilaahay baa ku caalim ah fa yunabbi'uhum ilaahay wuxuu u khabri doonaa ummadii oo dhan bimaa camiluu wixii ay sameeyeen khayr iyo shar maalinkaasa loo khabri doonaa wallaahu ilaahay bikulli shayin shay walbaba caliimun ilaahay waa mid ku cilmi leh shay walba ilaahay baa ku caalim ah oo ka warqaba wax walbaba ilaahay baa ku caalima waa ku caalim ilaahay wallaahu ilaahay bikulli shayin shay walbaba caliimun waa mid ku cilmi le weeye wax walboo la sameeyo ilaahay caliim ku yahay oo nifaaq iyo waxa weeye munaafiqnimo iyo iimaanba ah halkaas waxaa noogu dhammaaday suuradda la yidhaha suuratu nuur ilaahay ha nagu anfaco quluubteenna ilaahay ha ku nuuriyo qubuurteenna ilaahay ha ku nuuriyo nuur iyo marakac ilaahay suuradda ha nooga dhigo kuwa fahma oo ku camal fala rabbi ha naga dhigo dersigeenna tafsiirkaana caawo intaasan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu